iska mutawaadica u soo booqda sheekheena mufakirkeena sheekh cabdiraxmaan suleymaan bashiir xafidahullah waracaah. yacni ziyaaro waxay ahayd runtii mufaaji ama kadis igu ah oo yacni laakiin farxad weyn yacni igu yeelatay iyo saameyn weyn oo ma aanan filinayn sheekh waqtiyadan inuu ii imaan doono, laakiin yacni ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu ajri xasanaad uu kasii tilaab walba u soo qaado. anigoo la kaftamaya sheekha iyo axbaabtii la socotay waxaan ku lahaa sheekh 2 jeer ayuu iga adkaaday. maruu maqaal aan si adag aan maaragtay ugu naqdiyey, jawaab wuxuu igaga dhigay maqaal qurux badan oo iga qoray oo u bixiyey subxaanaka rabbi ma hada albuhtaan. inta maqaal layga qoray kan ugu fiican ayuu ahaa. haddana soo kale markaa maqaal naqdi aan u qoray, jawaab wuxuu iga dhigay inuu Ottawa iga yimaado oo igu soo booqdo magaaladeeda Kitchener. ilaahay subxaana watacaala ajri xasanaad ha ka siiyo sheekha soo booqashadiisa ziyaaradiisa. dabcan yani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. aad baan جزاكم الله خيرا dadkiina dhegeysanaya. waxaan aad ugu faraxsanahay inaan caawa fadhiyo guriga sheekhuna sheekh kashki awal taqaanaan cabdulqaadir sheekh cabdulqaadir kashki xafidahullah oo aan ku soo ziyaaranay si aan u ku talagelin mufaaji baan kaga dhignay. alxamdulilah isaguna waa nin ahlu karam ahlu diin ah. markiiba wuxuu diyaariyey wuxuu nagu soo dhaweeyo oo aada u harsareysa. anagu kuma soo talagelin ziyaaradan sport iyo riyaadi iyo waxbaan si ka soconay, laakiin markii aan magaalada Toronto imid oo 500 kilomitir u jirta meesha aan deganahay, sheekhuna magaalo garabkeyga Toronto u degan yahay, waxaan asxaabtii aan u imid ku idhi waa inaan ziyaarano sheekhii. dadku waxay aada ula yaabanaayeen maqaal uu usbuucii ugu dambeeyay sheekhu soo dhigay oo ay yidhaahdeen haddeeto waxaa bilaamaysa dagaalkii xidigaha oo dhex mari doonta labada sheekh. dagaalka xidigo waa kanaa ka fiican. walaalnimada sheekhu waa sheekh daaciya, waa sheekh islaamka fidya, waa sheekh degan, waa sheekh maaragtay fahansan risaalada islaamka. dadka aan dirirtan nahayna kuma jiro, wax colaada oo inaga dhexeeyana ma jiro, bal waxaa naga dhexeeya waxa weeyaan ukhuwa fillah iyo ukhuwa fi dacwa insha allahu tacaala. waxaan markaas rajeynayaa inaad dersi fiican laga barto oo ah atasaamux in la isasaamaxo, atacaayush in la wada noolaado, atacaawun in la isgargaaro, atanaasux in la iswaaniyo iyo in la isa sido.